السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواad asxaabta qaaliga halkani waa channelkeenu Fana Technology. asxaabta maanta waxaynu isugu nimi cashirkeeni koobaad ee kooraska Microsoft of Word. aynu halkan maanta ka guda gelayno cashirkeeni koobaad. asxaabta sidaynu soo sheegnay kooraskani waa kooras dhammaystiran kaana anfici doona dhammaan aqoonta programka la yiraahdo Microsoft of Word ama ka tirsan family of Microsoft shirkadda family of Microsoft shirkadda la yiraahdo Microsoft dhammaan programyadeeda mid ka mid ah ayaynu baran doonaa. haddaba maanta waxaynu guda geli doonaa cashirkeena koobaad. asxaabta qaaliga waxaynu ka codsan lahayn inaad subscribe noo saartaan channelkana sii faafisaan si aynu si fiican isula wada soconno. haddaba maanta waxaynu ku baran doonaa cashirkeena koobaad intan oo qodob ayaynu ku baran doonaa oo ah basiga Word ama programkan Wordka la yiraahdo. inta basiga waa ayaynu halkan ku baran doonaa maanta inagoo israacin doonaa intaas oo qodob. waxaynu baran doonaa marka koobaad sidee ayaa loo soo furtaa Wordka ama habab noocee ah ayaad soo furan kartaa. talabaad oo ah inaynu document cusub aynu gelino ama new document aynu sameeyno ama inaynu sameeyno pre-existing document hore u jiray inaynu soo furano iyo sida loo save gareeyo loona xafido waxa diyaarisay ayaynu ku baran doonaa. sidoo kale sida documentigaaga loo soo xiro ama looga noqdo ayaynu ku baran doonaa. waxaynu ku baran doonaa kaleeto waxaynu qornay inaynu print gareyno ama in daabacno iyo printiga intaanad daabicin sidee ayaad u arki kartaa. ama tusaale ahaan iminka waxaad qortay dhowr page ilaa 5 page ayaad qortay ma kala hutid 5 page ma ku dhan yihiin daabacaadoodu computerka ma ku dhan yihiin sidee ayaad u siiyay kartaa intaanad daabicin. page-ka iyo qaybahooda kala duwan ayaynu ku baran doonaa. inta page aad ku soo furan kartid aad wax ku diyaarin kartid. sidoo kale farta iyo sida loo highlight gareeyo ama loo calaamadiyo sida loo copy gareeyo sida loo paste gareeyo iyo sida loo jarjaro ayaynu ku baran doonaa. undo text ayaynu ku baran doonaa. faraad qortay sidee ayaad uga noqon kartaa. redo text ayaynu ku baran doonaa oo ah faraad qortay sidee ayaad u soo celin kartaa hadday ka masaxmato sidee ayaa si yar fudud aad ugu soo celin kartaa. intan waxaa la socda shortcut-koodii ayaa la socda insha Allah tacaala isla eegi doonaa. ugu horeyn waxaynu geli doonaa qodobka ah sidee ayaynu soo furanaa Microsoft of Word. dhowr hab ayaad soo furan kartaa asxaabta qaaliga. ka koobaad waa inaad tagtid Windows-kaaga aad starti Windows ka bacdina aad hoos u soo raacdid halka markaad ka aragtid Microsoft Office toolskiisa ayaad sii fidinaysaa. ka bacdi halkaas ayaad ka helaysaa Word in hoos u raacno. halkaas ayaad ka helaysaa Word. halkaas ayaad si yar fudud uga soo kicin kartaa ama aad start ka dhigi kartaa. habka labaad ee aad soo furan kartidna waxa weeyaan inaad halkan aad ka search gareysid adoo ku qorayo Word iyadana halkaas ayaad ka soo furan kartaa adoo dhahaya open halkaas ayaad ka soo furan kartaa. hab saddexaad ayaa jira waxaad su taabanaysaa keyboard-kaaga ayaad su taabanaysaa Windows
kabacdi markay daaqada yar sidaa kugu soo baxdo ayaad halkaa ku qoraysaa winword ayaad ku searchin garaynaysaa kabacdi okay ayaad dhahaysaa. habka saddexaadna sidaas ayaad usoo furan kartaa. iminka waxaynu sheegnay dhowr hab ilaa 3 hab ayaynu sheegnay. Microsoft of Word waa kan halkan waxaa ku jira waraaqo ama dokumentiyo aad isticmaali kartid oo isagu wato, laakiin kaynu adeegsanayno waxa weeyaan waa balaankii dokumentiga cusub weeyaan, kaas ayaynu adeegsanaynaa. daba qodobkeena labaad waxa weeyaan sidee ayaynu usoo furanaa dokumenti cusub, sidaynu usoo furanaa, sidoo kale mid hore u jirayna sidaynu usoo furanaa. markaad doonaysid inaad dokumenti cusub soo furatid waxaad dooranaysaa new ayaad dooranaysaa. kabacdi markaad new dooratid halkan ayaad kasii dooranaysaa balaankii dokumenti. sidaas waxaa kugu soo furmaya dokumentigaagii cusub ayaa sidaa kugu soo furmaysa ama waraaq cusub ayaa kugu soo furmaysa. siyaabaha loo soo furan karo dokumenti hore kugu jirayna waxaad dooranaysaa open ayaad dooranaysaa. wada dokumentiga hore keyboard ahaan markaad soo furanaysid dokumenti cusub markaad soo furanaysid waxaad taabanaysaa control plus n ayaad taabanaysaa. intaas ayaad keyboardkaaga ka taabanaysaa kabacdi waraaq kanoo kale oo cusub ayaa suuqa soo baxaysa. mid hore u jirayna markaynu soo furano waxaad dooranaysaa file ayaad tegaysaa kabacdi open ayaa dhahaysaa. halkaas ayaad isagana mid cusub kasoo dooranaysaa, ama waxaad keyboard ahaan taabanaysaa control plus o ayaad dooranaysaa. intaas ayaad keyboardkaaga taabanaysaa kabacdi waxaa suuqa soo furaya dokumentigii cusbaa, dokumentigaagii hore ama pre-existing document. asxaabta qaaliga waxay noogu xiga sidee ayaa loo save gareeyaa dokumenti aad qortay ama qoraalo aad qortay, sidee baynu u save garaynaa. sidoo kale waxaynu raacin doonaa qodobka kale ee ah dokumentigaaga sidee baad usoo xidhi kartaa. tusaale ahaan halkan hoos baan tegayaa, qoraal yar ayaan soo gashanayaa. qoraal yar oo dhowr paragraph ayaan soo gashanayaa. qoraalkaas iyo aan soo geliyey dokumentigayga qoraalka aan soo geliyey sidee baan u save garayn karaa. ugu horeyn waxaad tegaysaa faylka ayaad tegaysaa kabacdi waxaad dooranaysaa save ama save as. save waxa weeyaan badanaa dadku way isku khaldaan. save waxa weeyaan dokumentiga iminka aan diyaariyey waa imaan meel aan kusoo save garaystaa. halkan ayaan kusoo save garaynayaa. browse baan sii tegayaa kabacdi faylashayda meel alaala meeshaan doono aan rabo inaan faylashayda ka dhigto haddaan doono desktopkaas ayaan dhiganayaa. halkaas ayaan intaan magac aan u bixiyo, tusaale ahaan word ayaan u baxay, halkaas ayaan kusoo save garaysanayaa. waxaa timi save keliyaata. iminka save as ayaanu isticmaalnay. save keliyaata waxa weeyaan markaad qoraalkaygan iminkaan soo save garaystay haddii aan wax kale kusii daro, tusaale ahaan dhowr paragraph oo kale haddii aan kusii daro, tusaale ahaan labadaa paragraph ee kale ayaan kusii daray. labadaa paragraph ee kale haddii aan iminkaan ka noqdo hadhowto markaan ugu yimaado, hadhowto markaan kusoo noqdo waxaan usoo noqonayaa iyagoo aan labadaa paragraph ani ku jirin. sidaas daraaddeed waxaad tegaysaa file ayaad tegaysaa kabacdi waxaad adeegsanaysaa safetan caadiga. safeta caadiga markaan adeegsado intii kale ayaan kusoo kordhiyay ama labadii paragraph aan kusoo kordhiyayna iyadana waa la ii save gareeyay.
badanaa waxay ku anfacaysaa haddii aad buug oo kale aad qoraysid maalin keliya kuma wada dhammaynaysid dee buuggaas kabacdi hadba inta page aad ku dartid ayaad save kusii daraysaa waa sii save garaysanaysaa kabacdi sidaas ayaa lagugu xifdinaya. qodobkii kale inoogu sii xigay waxa weeyaan sidee ayaan iskaga soo xidhi karaa ama uga noqon karaa. halkan ayaad tegaysaa file ayaad tegaysaa kabacdi waxaad dooranaysaa exit ayaad dooranaysaa exit markaad ka baxaysid amaba si caadi ayaa iskaga soo xidhaysaa. amaba waxaad uga bixi kartaa adigoo keyboardkaaga isku qabta 3 lambar oo ah alt space plus c alt space plus c spacekaaga keyboardka ayaa taabanaysaa iyo xarafka c la yiraahdo. intaas ayaad uga bixi kartaa adoo keyboard ahaan ka taabta ama shortcutka waynagii sheegnay waxaynu cashar kasta intaan ku guda jirnay in shortcutkiisa raacinayna si uu fahamku kugu wada socdo ama si aad labada dhinacba aad uga adeegsan kartid hab caadiya iyo hab shortcut. qodobada kale inoogu sii xigi doonaa waxa weeyaan sidee ayaad documentiga aan diyaariyay iminka aad u birti garayn lahayd ama u daabici lahayd iyo inta aanad daabicin ka hor muhiimaynu iska sii eegnaa. ugu horreyn waxaan tegaynaa file ayaan tegaynaa kabacdi waxaan ka dooranaa print ayaan ka dooranaa printi ayaan ka dooranaa. waxa weeyaan marka uu printigu kugu xidhan yahay ayaad halka ka daabacaysa waa u jeedaan. printi preview ayaa iyadana jira halkan ayaad ka daabacaysaa. ugu horreyn waxaad tegaysaa maxay halkan waa inaad ka doorataa maxay page all pages haddaad doonaysa inaad dooratid halkan ayaad ka dooranaysaa waana taa buttonka laga sii saaro. halkana sidoo kale waxaad ka dooranaysaa inta copy aad iminka waraaq kaliya ayuu documentigeenu ku qoran yahay waa u jeedaan. haddii aad doonaysa inaad copy fara badan aad kasii samaysid halkaas waxaad ka dhigaysaa tusaale ahaan 3 copy oo kale inaan kasii sameeyo ayaan doonaya halkaas ayaan 3 ka dhigayaa ama waa inta copy aad saaraysid weeyaan. halkan oo kale waxa weeyaan sida ay pagekaagu u ekaanayo ma waraaq caadiya ma mid tan waxa weeye waa normal margin ayaa leeyahay waxa weeyaan qoraalkaagaasi inuu kasoo durugsanaado dhinac kastaba cabir isku mid ah. marka pagekan dib baynu dhigan doonaa waxaynu ku qaadan doonaa qaybta la yiraahdo setup pages la yiraahdo oo qodobadeenan inooga mid ah. qaybtan setup pageska la yiraahdo ayaynu ku qaadan doonaa insha Allah marka ka hor dhici mayno laakiin sida loo print gareeyo waa inaad halkan aad inta copy aad doonaysa ka gashatid sidoo kale aad halkan ka print gareysid. sidoo kale keyboard ahaan aynu raacino keyboard ahaan waxa taabanaysaa control plus p ayaa taabanaysaa control plus p. iminka haddaan taabto control plus p printiga ayaa sukay soo furay sidaas weeyaan. sidoo kale print preview ayaynu isla eegi doonaa. print preview waxaan taabanaynaa alt f ayaan taabanaynaa
alt f ayaan taabanaa ama halkan printiga ayaan tegaynaa tusaale ahaan print preview-ga halkan baan ka eegaynaa inta page ee igu jirta meesha halkan waxaa igu jira 1 of 1 waxay ka dhigan tahay waxaad daabacday ama waxaad daabacaysaa hal page ayaad daabacaysaa haddii ay noqon lahayd 3 page oo kaleeto halkaasi wuxuu noqon lahaa 3 pages ayuu noqon lahaa kaas ayaa la yiraahdaa maxay print preview qodobadeena asxaabta inoogu sii xiga casharkeena koobaad waxa weeyaan farta sida loo highlight gareeyo sidoo kale sida loo copy gareeyo loona paste gareeyo loona jarjaro ayaynu ku eegi doonaa intaas farteenan ama qoraalkeenan halkan inoo yaala ayaan rabaa inaan highlight gareeyo halka adigoo taagan ayaa isla qabanaysaa mouse-kaaga iyo right click kabacdi sidaas ayaad ugu jiidi kartaa amaba intaad meel kamid ah istaagtid ayaad taabanaysaa control A kabacdi dhammaan waa lagu wada highlight gareynaya waxaa yimi copy-ga waxaan taabanaynaa right click ayaynu ku dhufaanaa kabacdi copy ayaynu siinaynaa paste-ga tusaale ahaan intaas ayimka copy gareeyo copy markaan siiyo waxaan doonayaa inaan meel aan ku paste gareeyo space ayaan dhahaya kabacdi halkaas ayaan ku paste gareynayaa right click ayaan siinayaa waxaan taabanayaa paste ayaan taabanayaa paste ayaan taabanayaa sidaas ayaa lagu paste gareynayaa asxaabta qaaliga qodobadeena kale ay ku sii xigi doonaan waxa weeye sida loo jarjaro iyadana markaad highlight gareysid aad right click siisid cut ayaad siinaysaa amaba waad ka tegaysaa waxaad taabanaysaa control plus x ayaad taabanaysaa kabacdi sidaas ayaa lagaaga jaraya asxaabta qaaliga waxaa yimi qodobadeena ugu dambeeya aynu maanta casharka koobaad kusoo koobi doono waxa weeyaan waa undo text iyo reduce text tusaale ahaan qoraal ayaynu qornay waxaan doonaynaa inaynu ka noqono waxaynu tegaynaa asxaabta qaaliga amaba qoraal ayaynaga baabay tusaale ahaan kabacdi waxaynu doonaynaa inaynu soo celino waxaan dooranaynaa control z ayaynu caadi dooranaynaa control z dooranaysa markuu wax kaa baabaaba tusaale ahaan intaas ayaynu baabiinaynaa kabacdi waxaynu doonaynaa inaynu dib u soo celino keyboard ahaan waxaad adeegsanaysaa oo dooranaya control z dib ayuu kugu soo noqonaya ama hab caadi haddaynu ku eegno waxaad dooranaysaa halkan ayaad dooranaysaa iswaan baabiyo marka hore intaasaan iska jaray waxaan doonayaa inaan soo celiyo halkaas ayaan ka soo celinaya waa taa undo table halkaas ugu sareysa ayaa taabanaysa kabacdi uu kuu soo noqonaya haddii aad doonaysid ama qodobkan kale ah maxay reduce textina haddii aad doonaysid inaad ka noqotid waxaad soo celisid inaad ka noqotidna halkaas ayaad ka soo ceshanaysa marka keyboard ahaan ayuu aad iyo aad ugu fudud yahay adoo dooranaya maxay markasta control z badanaa waxaa la adeegsadaa tan ah inaad soo ceshatid wixii kaa masaxmay inaad soo ceshatid markaa keyboard ahaan si yaroo fudud ayaa u taabanaysaa control z ayaad taabanaysaa kabacdi waa lagu soo celinaya asxaabta qaaliga maanta waxaynu isla aragnay cashirkeena koobaad sida loo soo furto horta borogramka
iyo sida new document loo samaysto mid hore u jiray sida loo soo furto iyo sida loo close gareeyo iyo sida wax loo daabaco ayaynu maanta isla aragnay iyo waxa daabici lahayd inaad sii eegtid ama aad iska sii hubisid inta page ee aad daabacaysid yalaam salli ala maxamed pageskaas aynu videoga oo dheeraaday aynu ku dari doono cashirkeena ku xiga maadaama uu yahay cashar aad muhiim ah iyo end text iyo read text asxaabta qaaliga intaas ayuu cashirkeena koobaad maanta kusoo gabagaboobaya السلام عليكم channel kana la sii subscribe gareeyo hana la sii faafiyo السلام عليكم